barnaamijka kor u qaadista nafaqada qaranka oo ah barnaamij si toos ah u hoostaga xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland isla markaasna ah barnaamijka kor u qaadida hooyada iyo dhallaanka ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray barnaamijkani gobolka Togdheer. barnaamijka nafaqada qaranka oo ah barnaamij muhiimad weyn ugu fadhiya qaranka Soomaaliland ayaa madashii lagu daafuray barnaamijkaasi waxa goobjoog ka ahaa xiriiryaha guud ee barnaamijkaasi maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco. ugu horeynba waxa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda uu qarankan u leeyahay barnaamijkani xiriiryaha guud barnaamijka nafaqada qaranka Soomaaliland Dr. Sakariya Daahir Cige iyo ikraan oo ka socotay hay'adda UNICEF waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan. marka aad iyo aad baad mahadsantiin walaalayaal markaana u horeysa barnaamijku sida oo xiriiriyuhu ka dhawaajiyay waa kor u qaadinta nafaqada qaranka maadaama halka uu taagan yahay waana ognahay dhibaatada ay culayska iyo ay ku haysan nafaqa darradu qaranka iyo wadamada soo koraya oo dhan taas oo inta badan cimiladan isbedilaysa iyo abaarahan iyo waxaan iska wada ay door weyn ku leedahay. barnaamijku ahamiyadda uu leeyahay qaabkiisan horeba u sheegnay wuxuu shaqeeyaa qaabkan GPLG-gu ay u shaqeyso sababta ugu shaqeynayna waxay tahay 10 wasaaradood oo maanta isku duwayaashooda halka fadhiyaan iyo focal points-yada ay naga soo raaceen Hargeysa qabadidoodii ay naga soo raaceen ayaa keentay maadaama multi sectoral noqday oo intaas oo wasaaradood ay ku bahoobeen in xafiiska qaabku shaqeeya amba in hadii nidaamkan inna ku haysan ee siyaasiga madaxweyne ku-xigeenka inuu xafiiska madaxweyne ku-xigeenka yimaado oo istago waan ognahay nafaqo iyo nafaqa darro marka ka hadlayno inta badan waa mandate-kii wasaaradda caafimaadka mandate-keega iyadoo wixii u qornaa way sameeyeen laakiin barnaamijkani waa supplementary program oo wacyigelintii wasaaraduna xubin bay ka tahay buu sii xoojinaya wuxuuna u sii xoojinayaa markii la darsay waxa la ogaaday in mushkilada ugu weyn wasaaradda caafimaadka mandate-ka waxa weeyaan waa treatment-kii bay u badan tahay wacyigelintu way samaysaa laakiin inta badan waa daaweyntii daaweyntii ka hortagii baa loo baahan yahay ka hortagii maadaama loo baahan yahayna waxay noqotay markii la darsay qoladan UN-tu ay barnaamijkan ay eegeen waxay dhaheen wasaaradaha kala duwan baa loo baahanaya qaabkaas ayuu u dhisay oo inuu la dhamaystiro oo wasaaradaha kala duwan ay door ku lahaan karaan ayaa la darsay oo suu barnaamijkii isku dhamaystiri karo oo u noqon karo barnaamij waxtar leh oo wax qaban kara. runtii barnaamijku ahmiyadu leeyahay iyo sidoo soo socday qaab socodkiisa Sakariya wax badan ka hadlay oo ku noqon maayo laakiin waxaan ognahay inay tahay inay mas'uuliyad qaran tahay marka la joogo in qaranka marka la eegayo nafaqada qaranku waa in la helo bulsho caafimaad qabta as UNICEF ahaan waxaanu qayb weyn ku lahayn dardargelinta iyo hab socodka barnaamijka iyo inuu gaadho regional level oo maanta inuu taaganahay in Burco laga daafuro mandate-ka UNICEF qaybta nutrition-ka waxa wada la saaraa prevention is the first oo waxa nidaamka caafimaadka ba sheegaya in daaweyn ka hortag uu ka fiican yahay daaweynta marka in wax kasto oo ilmo yar ama hooyo inay nafaqa darro ku dhacdo in laga hortago that's number 1 marka hadii lagu guuldareyso ama imaado ilmo yar in nafaqa darro ku dhacdana inay treatment-keedna la helo labada ugu weyn xooga saarnaa waa labadaas waxaan ognahay in nafaqada ay ka soo bilaabmato hooyada oo hooyadu haddii caafimaad qabto ay nafaqadeedu fiican tahay inay qaadi karto ilmo caafimaad qaba ilmo caafimaad qabana u dhalanayo. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur mayor ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Baariyare iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xoday waxaana si weyn u soo dhaweeyeen barnaamijka nafaqada qaranka oo ay tilmaameen inuu yahay barnaamij kaalin muhiim ah ugu fadhiya guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland. mashruucan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada Champion-ka oo baytul qasiidkiisu yahay nafaqayn heer qaran ah hooyada iyo dhallaanka shay aad u daruuriya waa diyaar baan u nahay degmo ahaan insha Allah tacaala inaanu wacyigelintiisii iyo ka hawlgelintiisii iyo riixistiisa baynaanu insha Allah tacaala isbarbar taagno runtii nuxurka iyo muhiimadda kulankan iyo barnaamijkan maanta mowduuciisa halkan lagaga doodayo
waxaan u malaynayaa qof kastaaba kolley inuu qiimaha uu inoo leeyahay oo bulshada uu u leeyahay aynu garanayno aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa nafaqada waxaan u malaynayaa waa meelaha bini'aadanku ka dhismo oo ugu muhiimsan inay tahay caafimaad ahaan marka la eegahay si uu qofku u noqdo qof dee koritaankiisa iyo qaabkiisa iyo wanaagsan marka gobolkeennan iyo degmadeenbana runtii waxaa inta badan ku soo noqnoqday abaar runtii riiq dheeraatay iyo xanuunno kala dambeeyey taasina waxaa odhan karaa saameyn weyn bay siiba dadka reer guuraaga hooyada iyo dhallaanka u badan ay ku keentay mashaariicdan waa mashaariicdii inta xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu talada dalka hayay baahiyaha weyn loo qabay aan odhan karno way fuleen dabcan wuxuu ka yimi baahi qarankan saamaysay waayo nafaqa darradu marka ay dhacdo waa halka ay ka bilaabato masiibooyinka caafimaad darradu qofka haddii nafaqadiisa iyo nolosha jidhkii ay dhammaystiran tahay dabcan waxa weeye inuu awood difaac leeyahay oo nolosha dhinacnaba kastaba ha noqoto hooyada iyo dhallaanku si gaar bay u saameynaysaa mashruucan waa mashruuc weyn oo runtii qaranka muhiimad weyn u leh waana mashaariicaha waaweyn ee qarankan runtii ka heergalay ee lagu naaloonayo marka cid kastoo arrintan ka qayb qaadatay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu khayr badan siiyo waan uga mahad celinaynaa marka laga yimaado heer qaran gobol ahaan sidii xoogii uu sheegay baahi weyn baa loo qabay mashruucan inuu ka hirgalo gobolka Togdheer sababta regionkan waa region inta badan xoolo dhaqato ah abaaruna way soo noqnoqdaa markastoo abaar yimaadana waxa laga dhaxlaa waa nafaqa darro cidda uu nugul ee ku dhacdaana waxa weeye waa haweenka iyo ciyaalka waayo marxalad mar walba ka duwan ragay ku jiraan dhallaanka iyo hooyooyinku sidaa daraadeed si weyn buu u taabanayaa waana soo dhaweynaynaa qaybta gobolkani uu runtii ku leeyahayna diyaar baan u nahay haddii heer gobolta iyo haddii heer degmad tahayba mashruuca muhiimadiisa labaad waxa weeye in maamul daadejin lagu sameeyey waa maxamed ibraahim british TV-ga qaranka Somaliland burco